ciyaarta finaalka waa meesha ugu sareysa ee uu ruux gaari karo laakiin guuldaro aad habeenka finaalka la kulanto waa waxa ugu xun ee kubadda cagta ka soo gaari kara waxay sheegaan inaysan jirin wax abaalmarin ah oo lagu galo kaalinta labaad taasi gabi ahaanba run ma ahan laakiin biladda qalin jabinta ma ahan wax loogu nasteexeeyo kuwa khasaaray waxay iyaga inta badan doorbidaan in la ilaawo haddii ay jirto qadar ka daran inaad ku dhamaysto kaalinta labaad waxaa lagugu xasuustaa oo keliya inaad afuuftay awooddaadii ku soo xiiqday jidka jabkii ku gaarayna uu kaa tuuray daanta kuusha buugaagta sooyaalka ciyaaraha waxaa lagu daadiyey tusaalayaal badan oo noocan ah khaasatan markaad xasuusato wixii ka dhacay Camus 99kii ama Ataturk Stadium 2005 masiibooyinka noocan ah waxay qeexi karaan xirfadda ama xitaa qaabeyn karayaan aqoonsiga magaalo ama koox sida hadii jeer dhacda guulwadayaashu waxay qoraan taariikhda 15 sano kadib ciyaarta ayaa weli loogu dabaaldegaa sideedii mucjisadii Istanbul waxay ka mid tahay habeenada ugu waaweyn ee kubadda cagta Yurub laakiin uma ahan kuwa khasaaray iyagu waxay u wahid qarow aragtida Milan ee habeenkaasi masiiriga ah ma ahan mid inta badan aad maqasho taariikhda kubadda cagta waxay aragtay guulo badan oo gadaal ka soo galay qaar baa goolal badan fidsanaa laakiin 6 daqiiqo min 54 ilaa 60kii Ataturk naftirkeeda waxay isku gubtay kubadda cagta adduunka 6 daqiiqo oo waaliya tababarihii Milan ee habeenkaasi Carlo Ancelotti ayaa yiri ciyaarta kadib finaalka Champions League waxay u ahayd ciyaartii ugu dambeysay fasalkii 2004-2005 UEFA Champions League tartanka kubadda cagta kooxaha asaasiga ah ee Yurub bandhig faneedkan waxa ku tartamay Liverpool oo England ah iyo Milan oo Talyaaniga garoonka Ataturk Olympic Stadium magaalada Istanbul ee dalka Turkiga 25 May 2005 naadi kasta waxay u baahneed inay u gudubto wareegga guruubyada iyo wareegga 16 si ay u gaarto finaalka iyadoo wadar ahaan ciyaartay 12 kulan in la yiraahdo Milan ayaa ugu cadcad Istanbul waxay ahayd mid aad u weyn fasalkii 2005 waxa uu ahaa koox ay ka buuxaan mega stars caalamiya Ancelotti oo Rossoneri wata oo ay weheliyaan kabtan Paolo Maldini kubad sameeyay Andrea Pirlo khabiir ka farsamada Clarence Seedorf Tayyare Kaka iyo weeraryahan Andrei Shevchenko ayaa ah kuwa ugu cadcad ka hor kulanka ka hor finaalka waxay meesha ka saareen Manchester United kooxda isku magaalada yihiin Inter iyo kooxdii la yaabka lahayd ee PSV Eindhoven Milan oo ku jirta qaab ciyaareedkeeda fiican ayaana timid halkaasi toddoba kamida 11kii Milan ee ku soo bilowday habeenkaas ayaana ku guuleystay Champions League 2 sano ka hor Brazilian Gavu Dida iyo Kaka ayaa dhammaantood ku guuleystay koobkii adduunyada halka xagaagii xigay Andrea Pirlo Canero Gattuso iyo Alessandro Nesta ay noqon doonaan horyaalnimada adduunka ee Talyaaniga weeraryahanka Ukraine Andrei Shevchenko ayaa ahaa ciyaaryahanka ku guuleystay Ballon d'Or 2004 waxa lagu doodi karaa inuu yahay shakhsiga ugu weyn ee loo aqoonsan yahay ciyaartaasi ka hor inta sharafta uu ku doodi doono Kaka aan la gaarin 2007 kabtan Paolo Maldini waxa uu ahaa halyey Milan iyo Talyaaniga waxaana loo arkaa mid kamid ah daafacyada ugu fiican taariikhda ciyaaraha waana ciyaaryahan ku guuleystay 4 kamid ah 5tii koob ee Yurub ee waqtigaasi uu finaal gaaray kooxdu waxay ahayd mid cajiib ah si kastaba ha ahaatee markii uu bilowday ciyaarta TV-ga wuxuu filanayay hal natiijo oo kaliya waan ku qanacsannahay in aan badin lahayn kulankaasi waan ku kalsoonahay aad ayaan ugu kalsoonahay sidaas waxa yiri Dida sababta rajada madaxa leh ma aysan ahayn kaliya kalagsiga xidigaha Milan waxay ahayd daciifnimada loo arkayay mucaaradka Liverpool ayaa ciyaartay xiliyaareed cajiib oo Champions League waxayna u dabaaldegtay guulihii ka gaadhay Juventus iyo kooxdii Jose Mourinho iyo Chelsea wadada Anfield waxay ahayd qalcad waxayna ka dhigtay wadada guusha ee taariikhda Champions League
waxaan muujinay qiimaheena dhabta ah. Steven Gerrard ayaa yidhi ciyaarta ka hor, waxaan ciyaarta u geli doonaa si xushmad leh laakiin cabsi la'aan. waxaan nahay kuwa ugu liita xil ciyaareedkan, mana ahaan doonno kuwa ugu cadcada Istanbul, ayuu sidoo kale yidhi. inkastoo Liverpool ay mar gacanta ku haysay horyaalka Ingiriiska iyo tartamada Yurub, haddana guushan oo kale waxay ahayd waqtigaasi xasuus aad u fog. 2005 waxqabadkii gudaha ee Liverpool ee Premier League aad ayuu u liitay, oo xitaa umaysan soo bixin Champions League xil ciyaareedkii xigay. waxa saacidi doona waxa uu yahay ku guuleysiga koobkan maadaama ay ku dhameystay kaalinta shanaad kala sareynta horyaalka Barclays Premier League. 20 sano aysan Liverpool xitaa ciyaarin finaalka tartamada Yurub, Milan ayaa qaaday 4 jeer. run ahaantii hamiga Liverpool waxa caqabad ku noqday ganaaxii UEFA ee 5 sano ee lagu soo rogay dhammaan kooxaha Ingiriiska kadib musiibadii Heysel Stadium. laakiin iyadoo aanan loo eegin, waxay ka maqnaayeen miiska kala sareynta muddo aad u dheer. habeennimadii ciyaarta ayay kooxuhu waxay arintooda u gudbiyeen warbaahinta caalamka. Maldini waxa uu ka mid ahaa kuwa soo jiidashada leh. taariikhda ayaa xisaabsan. sanadihii ugu dambeeyay Milan mar walba heerkan ayay joogtaa ama ay gaaraysay. maamulaha sanadka koowaad ee Liverpool, Rafa Benitez, waxa uu u sheegay saxaafadda inuu rajeynayo inuu gool xilli hore dhaliyo, laakiin Maldini oo konton ilbiriqsi ay ku qaadatay kubad laad xoro la soo tuuray inuu shabaqa daba mariyo, maysan ahayn wixii uu hamiga ku hayay Benitez. sida Paulo Acostanelli uu xasuusan yahay, waxaan ciyaarnay kubad cajiib ah. kooxdu waxay ahayd mid kalsooni leh, wax walba way fiicnaayeen. kadibna Maldini ayaa dhaliyay. taasi waxay calaamad u ahayd masiirkeena. 2 gool oo uu dhaliyay Hernan Crespo ayaa hoggaanka u sarifay 3 gool iyo eber. waxay ahayd hoggaan u muuqday inaanan laga gudbi karin lana gaari karin, laakiin wax aan run ahayn ayaa dhacay. Antonio Carreco waxa uu la socday Lucio, asaasaha kooxda taageerayaasha ee Calaboli 1984. isaga oo qiyaasaya waxa uu soo taagnaa ilaa 400 oo kulan. waxa uu daawaday iyagoo kor u qaaday koobkii Yurub ee Madrid, kii Barcelona, Vienna, 2 jeer oo Atalanta iyo Manchester koobkii ay ku qaadeen. qaybtii hore waxay ahayd mid aad u wanaagsan. taageerayaashu waxay naga codsanayeen in aan soo bandhigno boorarka dabaaldega, laakiin kadib qaybtii labaad waxa aan run ahayn ayaa dhacay. wixii ku xigay waxay noqdeen halyeennimada Liverpool markii ay kooxuhu garoonka ka baxeen. 15 daqiiqo oo nasiina way adkeed in la ogaado kooxda laga badiyay. taageerayaashii ku sugnaa dhamaadka Liverpool ee garoonka Atatürk Stadium ayaa si hagar la'aan kor ugu qaaday calaamadooda, iyaga oo geesiyaashooda ku sasabaya heesta ammaan iyo kuwa dhiirigelina, oo ay ka mid tahay heesta lafdhabarta u ah iyaga ee You Will Never Walk Alone. Reds waxay u eekaayeen inay ku socdaan iyagoo faramaran. markii aan sii soconnay qolka labiska, daafac Jimmy Carragher ayaa sidaa ku qoray buugga taariikh nololeedkiisa. waxaan eegay dhanka sagxadda, wax kale maan arkin oo aan ahayn niyad jab aan dhammaad lahayn. riyadaydii waxaa isku hordhigay boor aad u adag. Pirlo waxa uu ciyaarta ku hogaaminayay bartamaha beerta. waxa uu doonayay in Luis Garcia iyo Steven Gerrard ay ku ciyaaraan hareerihiisa si ay u abuuraan heer sare oo tiro ah oo sax ah, si ay u joojiyaan in kubadaha uu dhaafiyo, ayuu yiri Benitez sida uu sheegay Carragher. hagaag waxaan u maleeyay malaha 45 daqiiqo aad bay u dahday, laakiin waynu awoodnay. Carragher ayaa xasuusanaya hadalkan marka loo tixgeliyo duruufihii adkaa ee habeenkaasi. ciyaartoyda Liverpool ayaa ka maqlayay qolkooda labiska. daafac Sami Haybi ayaana yiri, malaha taasi waxayna siisay xoogaa xoog ah. Rafael Benitez waxa uu yiri, fikira sidaani kuma sii socon karto, waa inaan siinaa taageerayaasha waxa ay ku farxaan qaybta labaad. aad buu u deganaa. guud ahaan hoolka Milan ayaa sidoo kale degnaanshiye muujinayay, sida uu diida u sheegay CNN. tababare Carlo Ancelotti
wuxuu ahaa mid deggan, wax badan ma uusan noo sheegin, laakiin waxa uu inoo sheegay in weli aan bixinno dadaal badan, waayo waxaa haray 45 daqiiqo oo kale. Sidaa daraaddeed waxa aanu garannay in aanu dadaalno. kubadda cagtu waa ciyaar ay ka buuxaan mucjisooyin, laakiin marar dhif ah weligeed maysan dhicin ciyaar labada qaybood la kala aarsado. markii la isku soo laabtay qaybtii dambe ee ciyaarta ayay Liverpool u muuqatay koox ka duwan sidii hore. gool uu madax ku dhaliyay kabtankooda da'da yar xilligaas Steven Gerrard ayaa natiijada ka dhigay 3 gool iyo 1 gool. 2 daqiiqo gudahood waxay ka dhigeen 3 gool iyo 2 gool iyagoo kaga mahadceliyay Vladimir Smays. markii uu ku soo laabtay dalka Talyaaniga, Agostinelli waxa uu sheegay in uu joojin waayo dareenkiisa intii lagu jiray nastiinada. saaxiibkii taageera Juventus ayaa weydiiyay inay xitaa run ahaantii u baahnayeen inay daawadaan qaybta labaad, laakiin markii Liverpool ay bilowday goolalinta, telefishinka ayuu damiyay markuu dareenkiisa isbedelay. aad ayaan u xanaaqay, waxaan dareemay wax xun oo dhabarka kor ilaa iyo hoos iiga dhacaya aniga. kaliya 15 daqiiqo markii dib la isku soo laabtay 6 daqiiqo oo qura markii goolkii ugu horeeyay Liverpool ay dhalisay. ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay barbardhac 3 gool iyo 3 gool. diida waxa uu rigoore ka badbaadiyay Xavi Alonso, laakiin daayarka qadka dhexe ee Isbaanishka kubaddii oo soo noqotay waa uu dawo mariyay goolahayaha Brazil. isagoo ka daawanaya magaalada Milan, Agostinelli waxa uu yiri: markii aan arkay diida oo badbaadiyay, laakiin weli kuma filna. isla markaasi waxaan ogaa in tani ay luntay. waa naxay, run ahaantii ma adkaysan karin. fikradeedii ugu horeysay waxay ahayd in aan tago garoonka diyaaradaha oo aan ku laabto guriga sida ugu dhaqsiyaha badan. gudaha garoonka, taageerayaasha Milan waxay arkayeen burbur iyo shucuur aad u kacsan. Cruyff waxa uu isku dayay inuu farsameeyo, waxa uu marqaati ka ahaa wixii dhacay, waxa uuna yiri: waan naxay run ahaantii, ma adkaysan kari. fikradeyda ugu horeysa waxay ahayd inaan ka tago garoonka, aado garoonka diyaaradaha kuna laabto gurigeyga sida ugu dhaqsiyaha badan. markaad weydiiso ciyaartooyda labada dhinac wixii dhacay habeenkaasi, midna dhab ahaantii ma awoodo inuu ku sharaxo. diita wuxuu ku tilmaamay walaac soo galay, laakiin waxa uu sheegay weli inay dareemayeen inay chance haystaan ciyaartu markii ay socotay, waa intaan rigooraha la gaarin. fiid aad u xun. heerkii 90 daqiiqo ciyaarta kadib, ciyaartu waxay gashay waqti dheeri oo nus saac, laakiin iyadoo riwaayadda rigoorayaal ay soo dhawaatay, Milan weli waxay heshay fursadihii ugu dambeeyay ciyaarta oo dahabi ahaa. waxay soo martay weeraryahankooda aan caadiga ahayn ee Shevchenko, laakiin 2 jeer oo cajiib ahayd waxaa badbaadiyay goolahayaha reer Poland iyo Liverpool, Dudek. Cruyff taasi waxay u ahayd qeexitaan rasmi ah. waqtigaasi waxa aan fahmay in AC Milan ay lumisay koobkan. rigoorooyinka ayaa xilligaa kadib xigay. Milan waxay khasaarisay rigooradeedii ugu horeysay. Dudek ayaa badbaadiyay 2 kale. Liverpool ayaana soo gabagabaysay soo laabashadeedii aan caadiga ahayn si ay ugu guuleystaan koobkoodii 5aad iyo tan ugu macquulsan koobabka Yurub oo idil. guusha Liverpool ayaa lagu soo dhaweeyay si la yaab leh, gaar ahaan tababare Rafa Benitez kaasoo qirtay gabagabadii ciyaarta: dhibaatadeeda ayaa ah inaanan haysanin erayo aan ku muujiyo waxyaabaha aan dareemayo xilligan. khabiirka telefishinka iyo daaficii hore Liverpool Alan Henson ayaa yiri: maahin oo kaliya soo laabashadii ugu fiicneed ee final koobka Yurub, maahin kaliya soo laabashadii ugu fiicneed ee aan arkay kubadda cagta, waxay ahayd soo laabashadii ugu fiicneed ee aan ku arkay sportiga meel kasta oo adduunka ah. xitaa xulkii Brazil ee ku guuleystay koobka adduunyada ee 70-meeyadii maysan ku soo laaban karin iyadoo Milan ay 3 gool ku hogaaminayso. dhanka kale, xindaabka waxaa jira falcelin qoto dheer oo siman, sida Pirlo oo ku sharaxay taariikhda noloshiisa: I think why I play. waxaan u fadhinay sidii dad faramaran, qayb qolka labiska. waxaan ahayn zombies dhiigii cab ah.
oo la kulmay dhibaato aan la arki karin. Dhiiggeenna ayay cabeen dhibic kasta oo u dambaysay. Ma aanan hadli karin, mana dhaqdhaqaaqi karin. Maskax ahaan ayay noo burburiyeen. Hurdo la'aan, xanaaq, niyajab, dareen aan waxba ahayn. Waxaan abuurnay cudur cusub oo leh astaamo badan. Istanbul Syndrome. waxay ahayd mucjisadii Istanbul, laakiin Milan waxay u ahayd qarow, musiibo. habeenkii Istanbul taageerayaashooda waxay isticmaaleen 3 kelmadood si ay ugu qeexaan farxadoodii sare ee sida naxariis darada ah loogu daadiyay murugada 6 daqiiqo oo waaliya oo kaliya. Kreko waxa uu sheegay in weli uu naxsan yahay markii uu gurigiisa yimid, isagoo doonayay inuusan ka degin diyaaradda. kaaliyaha diyaaraddu waxay ahayd inay ii timaado si ay igu qanciso inaan diyaaradda ka dega, ayuu yidhi. mararka qaar marka aan daawanno ciyaarta maanta weli ma rumaysan karno. Diida ayaa ku calaacalay. weli waan ka fikirayaa, aad ayaana iskugu soo dhowaanay. sidee bay noqon kartaa? inta badan ciyaaraha marka kooxdu ay si cajiib ah u sii jiidanayso ama naftay uga sii baxayso, taageerayaashu ma caawin karaan inay shidaan kooxda. laakiin Agostinelli oo ka qayb galay 2 koob oo Yurub ah oo hore kooxdan ay ugu guuleysatay ayaa sheegay intaasi aysan halkaa ka dhicin. hore ayaa sheegay intaasi aynan halkaani ka dhicin. waxay ku guuleysteen fiinaalkii 2003. waxaa jiray ciyaaryahano badan oo aan jecelnahay. ma jirin wax xiisad ah oo u dhexeeya taageerayaasha iyo kooxda. macalinka waxa uu ahaa Milanista. dhammaanteen waan jecelnahay isaga. ma jirin wax xanaaq ah. waxay la mid tahay annaga oo kale. waxay la dagaalameen xoog aan qarsoonayn oo aan laga adkaan karin. tani waxay ahayd wax aan caadi ahayn oo aan macquul ahayn oo keliya. wax aan macquul ahayn ayaana hagaajin kara. iyo nooc wax aan macquul ahayn ayaa dhacay 2 sano kadib. 2007 markan Athens ayaa lagu kulmaya. Liverpool iyo Milan ayaa kala ku kulmaya finaalka Champions League. fursada dib u soo laabashada ma dhawa. waxay ahaan lahayd mid aad u yar. isku koox, maamulayaal isku mid ah iyo ciyaartoy badan oo isku mid ah ayaa hadda kulmaya. Liverpool waxay ku raaxaysanaysaa mucjisadeedii, laakiin tani waxay fursad u tahay Milan ay ku argoosan karto. waxay ahayd dhul quduus u ah iyaga, sababtoo ah tan iyo markii ay Milan sidan oo kale ugu guuleystay Champions League Olympic Stadium 1994. ciyaarta ayaa ahayd mid xamaasad badan, dagaal badan. inkastoo Liverpool ay abuurtay fursado badan, haddana Milan ayaa ishagaajisay waxayna barteen cashirkoodii 2005 ka qaldamay. diida ayaa ku faraxsan hadda inuu dib wax xasuusto ciyaartii Athens. farqiga dhabta ah ee u dhexeeya labada kulan waxa uu ahaa feejignaanta ayuu xasuustay. waxay ahayd mid aad iyo aad u xoog badan. waxay ahayd mid aad iyo aad uga xoog badan sidii hore. dhinac kasta ayay gacanta ku hayeen. goolasha soo daahay oo qayb kasta ah waxaa dhaliyay Filippo Inzaghi oo ku dhaawacmaday ciyaartii ka dhacday Istanbul. Milan waxa uu ku guuleysatay kulankaasi 2 gool. intuusan daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta uusan Dagoit qalbi qaboojin u dirin Liverpool. waan isku duubnay oo waan isa salaamnay. kadib aabayaasheen wiilashooda ayaa halkaasi joogay. runtii waxay ahayd dareen cajiib ah, ayuu yiri Diida. waxa ay cadeen u ahayd in aan sidoo kale samayn karnay wax la mid ah 2 sano ka hor. laakiin waa in aan isku daynaa in aan ilaawno ciyaartiina laga badiyay oo aan diiradda saarnaa waxa aan ku guuleysanay. Milan ayaa dib ugu laabatay hoggaanka Yurub iyadoo dib u soo ceshatay mid ka mid ah awoodaheedii ciyaaraha qaaradda. ciyaarta kadib daafaca Milan Gennaro Gattuso ayaa warbaahinta u sheegay, guuldaradii 2 sano ka hor way igu sii jiri doontaa inta aan noolahay, laakiin tani waa sheeko ka duwan midaasi. waa markeena inaynu u dabaaldegnaa hadda guusheena. Frimbigii ugu dambeeyay ciyaarta, kor u kaca tarbuunka iyo taageerayaasha dabaaldegooda kadib. Kreko
waxa uu ahaa mid qanacsanaan badan ay ka muuqato waxay ahayd wax aan la rumaysan karin dareenka iyo farxadda aan dareemayay waxay ahayd mid aad u weyn ugu dambeyntii waxaan saarnay boorarkii taagnaatanaya Istanbul inagoo indhaheena ay shanta yihiin ilmana ay ka qabanaysaa ayaynu taagnay ku weynaa ayuu yiri marar dhif ah ayaa guuldarada qalbi jabka ee noocan oo kale ah loo bedelaa argoosi lagu qanco laakiin Athens hadii jeer waxay noqon doontaa mid ka qoomamaysa Milan ayaa laga yaabaa in lagu ceejiyo 2005 nabaradii fiidkaasi iyaga ay isku soo saareen laakiin 2007 waa ay ka bogsadeen waxay sameeyeen wax kasta oo suurtagal ah si ay gadaashooda u dhigaan dhibaatooyinka haysta